asxaabta soo dhawaada maanta waxaan idin tusayaa 3 acshaabood oo daawa isku eg farqiga u dhaxeeya ama waxa ay ku kala duwan yihiin geed ka midana waxtarkiisa iyo waxyeeladiisa aan ka hadlayna hadaba aan fiidiyogeena guda galno bismillah allahumma salli ala sayidina maxamed asxaabta acshaabtan saddexda nooc midkan waxa waaye waa xawaaji duduub saddexda geed way isku eg yihiin laba ka mid ma kala saari kartid kan anas baa la dhahaa carabigana yaansuun ayaa lagu dhahaa waa geed daawa aan waxtarkiisa ka hadli doono iyo waxyeelada uu leeyahay kan waxa waaye waa shamarta dadka badana way yaqaanaan xoogaa ayay ka waaweyntahay kasoo qaad qofku haduusan aqoonin asagoo anas u baahan ayaa xawaaji duduub laga gadi karaa maxay ku kala duwan yihiin kan fiiriya asxaabta si fiican u fiiri waa xawaajiga aad maalin walba bariidka ku darsatid anaska iyo asaga ma kala taqaanid hal wax bay ku kala duwan yihiin waxaas aan kuu sheegaya marka waa inaad taqaanid marka aad soo gadanaysid anaskana way isku eg yihiin way isla eg yihiin waa kana hada anaskana waa kana xawaaji duduubka ayuu la egyahay maxay ku kala duwan yihiin anaska wuxuu leeyahay ur aad iyo aad u dheer oo anoo kale u bartay wuu jecel yahay udgoonu ileeyahay haduu kugu cusub yahay adigana daawo kula noqonaya xawaaji duduubkana waa iska taqaan asagana urka inaa ku kala garatin maaha wax kale ay ku kala duwan yihiin male markaad soo gadanaysid xawaaji duduubka ayaa taqaanaya iska fiiri yaan lagugu sirin marka asxaabta kow marka aad anaska ama xawaaji duduubka sameysanaysid isku si baa loo sameeyaa biyaha dabka soo qaadanaysaa wax badan ha soo qaadanin acshaabta daawo way tahay laakiin ha iska badinin hadaa iska badisid xanuunaa laga qaadaa waxaa soo qaadanay intaas oo kaleeto 3 koobay kuu sameyn kartaa mujeedan qaadada inteedaas biyo caadiya ku shubee dabkaa saaraysaa marka 7 daqiiqo camal aad dabka saaray hadaad anaska ur buu leeyahay urkaas waa ur fiican waxaa ku daraysaa sanjabiil noocay rabta ahaatee laakiin xawaaji duduubka sanjabiil waxba kuma darisid isku sibba u karinaysaa xawaaji duduubka kaalsiyona ka buuxa nafaqo waaye calooshuu u fiican yahay waxtarkiisa janarka ugu jira mid kasta waa idiin soo gelinaa biidna allah 3 geed maanta laakiin anaska ayaan ka hadlaya waxtarkiisa kadib waa dabkaa soo saaray 7 daqiiqo camal dabka soo saaray hadda anaskiyaan karinaynaa saasa usoo karinay geedkan daawo waaye waa iska miiree tan kale waxaa ku darsanaya asxaabta sokor baa ku darsan kartaa dadka malab ma wada haystaan hadaan ku dhaw malab ku darso waxaa u maleynaya malab kaliya in loo qoray ma loo qorin sokoraa ku darsanaya malab baa ku darsanaya waa geed daawa waa iska miire waa cabaysaa marka saddexda acshaabood way isku egyihiin saddexduba daawo weeye tan kale saddexdooda hadaa isku dartid ma fiicna waxaa fiican inaa ayaga oo mid walba gaarkiisa u cabtid sonkoraa ku darsana ani hadda malab maba haysti adigana markaa malab haysatid malab ku darso markaa sokor haysatid sokor ku darso hadaba waxaan ka hadlaynaa kan waa yaansuunka ama anas baa la dhahaa asagoo waxaa jira sidii xidig afargeesa u sameysan asagoo waxaa jira asxaabta sidii baakadkii oo diyaara kan baakadka oo diyaarka biyo ka karsan ayaa ku shubaysaa bas wax kale uma baahna laakiin kan miraha aad u daawo u yahay aad iyo aad u cashaab waa daawo waaye waxtarkiisa ayaan ku bilaabaa asxaabta waxaan idinku xijinayaa waxa uu ka kooban yahay iyo waxyeelada uu leeyahay kow waxtarka koobaad yuu u leeyahay wuxuu u leeyahay dadka walwalka qaba aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay oo hadaa cabtid aad iyo aad ayuu u fiican yahay labo waxtarka labaad yuu u leeyahay gabadha dhiiga caadada ku xanuunsata oo nabarka weliba aadka u qabto in yar oo sacfaraana ku darsanaysaa intaa soo karisid wax yar sacfaraana ku daraysaa xanuun maba ku qabanayo sacfaraan hadaadan haysan asaga kaliya cabay hadaadan asaga haysan xawaaji duduuba soo karsane waa cabaysaa uma joojinaysid 3 yuu u leeyahay faa'iidada saddexaad gabadha dhiiga caadada markuu ka go geedkan aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay oo waxyaabaha badan ayuu ugu fiican yahay marka yuu gurigaaga ka dhamaan daawo weeye oo waa geed daawo maasha allah geedkan loo yaqaano yaansuunka runtii aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay caafimaadka sidoo kale asxaabta geedkan wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay dadka sokorowga qaba sokorta ayuu u fiican yahay
macnaha dadka sokorta qaba aad iyo aad ayuu geedkan ugu fiican yahay. Geedkan wuxuu ka takhalusaa waxa loo yaqaano caloosha dadka oo maaragtay maxaa la dhahaa, caloosha markay ku xanuunayso ama ay ku fadhido waxaa ku dareysaa waxa loo yaqaano jaleelada mataqaanin ayaa ku dareysaa. waxaa kaloo ku dareysaa shamar baa ku dareysaa, shamar yansuun iyo waxaa isku darey jaleelo, caloosha horey kaa soconaysaa. geedkan daawo weeye. hooyada ilmaha nuujinaysa haddii macnaha caloosha ay xanuunayso anaskan ay cabiye maxaa koos gareynaya ilmaha ma ku dhacayo xanuunka, caanaha hooyadu ka nuugaya marka caloosha ilmaha ma xanuunayso. tan kale waxaa jira anaska oo baakada yaryara oo ilmaha loogu talagalay farmashiga kasoo gadanaysa. haddii kale kan in yaraa karinay waa qaboojinay, qaada yariisa afka ugu shubay ilmaha haddii maqas caloosha ka qabana. maqas waxaa ka wadaa nabarka caloosha qabta, gabdhahaas kan qabta. waxaa waaye waa antioxidant aada u xoog badan ayuu wuxuu u yahay, bakteeriyadu ka hortagaa iyo fangaaska iyo waxyaabahaas ayuu u fiican yahay. runtii geedkan geed daawa aada iyo aada wuxuu ugu fiican yahay xanuuno badan oo waxyaabo badan ayuu ka takhalusaa. ilmaha oo kaleeto marka caloosha xanuunayso okay kasoo qaad cuntada ma kuu shiidmayso calooshaada oo dheefshiidka ayuu u fiican yahay. geedkan aada iyo aada ugu fiican yahay. cuntaa cunaysa markaa cunto cuntidba waxaa cabaysaa koob. laakiin haddii aa qabtid xanuunka oo qaaluunka loo yaqaano casabiga ah oo macnaha ay caloosha ku xanuunayso geedkan ha cabin, wax kale cab. sidoo kaleeta marka waxaan ka hadlaynaa muxuu geedkan ka kooban yahay. kow wuxuu ka kooban yahay horta waxa loo yaqaano calorie aan badnayna ku jira, carbohydrate aa ku jira, feebara ayaa ku jira. geedkan iron ama bir ayuu qani ku yahay, anaska loo yaqaano potassium, calcium, magnesium ayaa ku jira. aada iyo aad ayuu geedka ugu wanaagsan yahay. yaan cuni karin geedkan. kow ilaahayga raxmaanka ha caafiyo gabdhaha oo qaba xanuunka kansarka oo naasaha gala ma cabi karaan oo aada uma fiicna. sidoo kale hadaa sameynaysid operation oo kaleeto acshaabta dhan ha cabin, 2 asbuuc ka hor iska jooji hadaa acshaab cabi jirta. sidoo kale dadka qaar ayuu wuxuu ku koos gareeyaa waxa loo yaqaano xasaasiyada ama waxa loo yaqaan allergy ayaa dadka qaadaan, laakiin wax badan ma ahan. runtii geedka aada iyo aada ayuu daawo u yahay. marka geedkan wuu fiican yahay, ku dadaala. sidoo kaleeto waa idiin soo gelinaa 2 geed oo kalena biidna allah waxtarkooda mid